Khalid waxa uu soo iibsaday surwaal uu ku ciido, balse surwaalka waa uu ka dheeraa. Guriga ayuu imaaday waxa uuna u tagay hooyadiisa. Wuxuu weydiistay surwaalka inay u yareyso. Hooyadiisa waxay dhahday waan mashquulsanahay. Kadib waa uu soo baxay wuxuuna u yimid walaashiisa. Ayadana waxay dhahday cunto ayaan karinayaa. Markii dambe wuxuu u yimid ayadiisa waxayna dhahday waan daalanahay oo waan seexanayaa. Waa uu soo baxay harqaantolihii ayuu u yimid. Kadibna surwaalkiisa ayuu soo yareystay. Waa uu seexday wuxuuna rabay subaxii alisay in uu salaad ciid u qaato. Intaas kadib hooyadiisa markii shaqada ay dhamaysay way soo baxday surwaalkii ayayna yareysay. Haddana gabadhii walaashiisa ahayd ayadana way soo baxday ayadoo u qalbi jilcaysa walaalkeeda waxayna bilowday 4 sentimitir inay ka jarto surwaalka. Halka iyadiisana ay soo kacday xilli saqdhaxa habeenimo ah. Ayadoona soo xasuustay Khalid surwaalka inuu beri ku ciidi rabo. Ayadana way soo baxday surwaalkii 4 sentimitir ayay ka jartay. Balse Khalid markii subaxii soo kacay wuxuu arkay surwaalkiisii oo buumo noqday.